الحمد لله إلهي بمهدله مهدله بك بعدي وحنو مهدنقيا guud ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland sidii quruxda iyo qiimaha lahayd ee ay uga soo baxeen marxaladii adkayd ee doorashada ee xanafta lahayd bariyahan dambe waxa saxaafadda iyo miidiyaha ku soo badanayay war aad u naxdin lahaa oo bulshada dhaawac ku ahaa qaranka dhaawac ku ahaa qofnimada dhaawac ku ahaa wadaniyada dhaawac ku ahaa beelaha dhaawac ku ahaa oo aan dhinacnaba u roonayn aakhira dhaawac ku ahaa ifka dhaawac ku ahaa hadal ka soo yeeray nin la yiraahdo Xasan Suldaan Cabdiraxmaan Xasan Suldaan Cabdilaahi la yiraahdo oo uu ka sheegay madal lagu caleeyay masaarayay boqor beelaha Soomaaliland kamid ah hadalkaas oo noqday hadal dhiif yeeshay riiq xun keenay ummadii kala kaxeeyay guud ahaan hadalka waxaan leeyahay in Allah intii u taabtay iyo intii madasha fadhiday iyo boqorkii la caleeyay masaarayay iyo qaranka iyo shacabweynaha reer Soomaaliland waan idinka raali gelinaynaa marka koowaad waanu ka xunnahay in marxaladda maanta lagu jiro in ummadda la qaybiyo qabiil lagu qaybiyo qof loo qaybiyo xisbiyo la soo dhaafay tartan la soo dhaafay lagu qaybiyo ummaduhu isbahaysiga waa la galaa siyaabo badan baa la isku bahaystaa waa la isku xulufaystaa tartan siyaasi ah la isku xulufaystaa ku dagaal baa la isku xulufaystaa waxyaabo badan baa la isku xulufaystaa laakiin hadal waliba maalin waliba hadal bay leedahay maalin aroos baa la joogaa maalinna geeri baa la joogaa maalinta arooskuna hadal bay leedahay maalinta geeridu hadal bay leedahay maalinta doorashada iyo campaign-ka lagu jiraana hadal buu leeyahay maalinta madaxweynaha iyo ay soo baxaana ee qaranka la dhisayna hadal buu leeyahay maanta waxaynu u baahnayn inaynu wada jir qarankeena u dhisano maanta waxaynu u baahnayn inaan ummadda isku keenno wixii ay soo kala dhaxgalay ee doorashada lagu kala tirsaday iyo wixii lagu kala duday ayaan maanta u baahnay sidii loo dhameyn lahaa umaynaan baahnayn in maanta la qaybiyo oo dadka qoloqolo loo qaybiyo oo xisbi loo qaybiyo oo maxay oo group loo qaybiyo umaynaan baahnayn aad baan uga xunnahay in magaca beelaha la sheegto cid aan loo cumaamadin sheegato cid aan meel lagu caleemo saaray aanay jirin ay iska sheegato taaj aan la saarin qofku isa saaro bal waxa isweydiina meeshii lagu taajka lagu saaray bal waxa isweydiin leh meeshii lagu doortay bal waxa isweydiin leh cidii dooratay intaasiba waa waxba kama jiraan walaalayaal dadka arrinkaasi taabtay ee uu sida gaarka u taabtay waxaan leenahay noo raalli ahaada sabra idan ma qabato ummadda dhammaanteed wax abti gaara isku ah iyo wax adeer gaara isku ah ma jireen ummaddu waa wada walaalo reer Soomaaliland guud ahaan wax kala gaara iyo wax kala duwan oo ay leeyihiin iyo cid gaar oo wax soo yahay meeshan ma jirto madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gobol walba waa laga doortay degmo walba waa laga doortay cid gaar oo uu hostage u yahay oo uu la haysto u yahay oo abaal gaar ku leh ma jirto oo ummadda u calaamadsan madaxweyne qaran buu noqday ninka hadii la doorto waan ku doortay lama oran karo qaranka qabyaalad lagu qaybin maayo madaxweynaha wax qabadkiisa qabyaalad lagu qaybin maayo madaxweyne adiga laftaadan ka raali gelinayna kuma qabato in cid gaar lagu calaamadiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland baa lagu doortay ummadda cadaalad ku dhaqbaan ku leenahay cid gaar lagu ma dooranin eray nin baan ka hayaa yiri geelu marka uu ma yahay hees baa loo qaadaa marka la soo waraabiyana hees baa loo qaadaa waa runtii maalinna doorasho lagu jiraayo campaign baa lagu jiraayo hadal bay leedahay maalinta uu campaign-ku dhamaadana hadal bay leedahay annagu waxaan u aragnaa hadalkaasi inuu xukuumadda ku wajahnaa oo carqalad ku ahaa ee aanu beelaha wax kala u jeedine wada laga dhiganayay madaxweynaha toos ugu socday wadadii madaxweynaha ku socotayna ay halkan martay cid walibana way garanaysaa erey siyaasadeed buu ahaa
sidaa la ajligeed walaalayaal ereygaas yaanu qarankeenna duminin yaanu waxba inaga dhex dhalinin walaalnimaan idiin haynaa kalgacayl baan idiin haynaa tol wada dhashay baynu nahay ummad Soomaaliland aynu wada nahay abiye isir wadaagtaynu nahay wax walba isku abaynu nahay ma kala nihin dad la kala qaybin karo iyo dad wax lagu kala sheegi karo midna ma nihin haddii xisbiya shalay lahaa maanta qaran baa leeyahay برينا حسبي الله نقول دونايو أنت شلي وذا سعتين ما إن كلام بريت ولا إسراع دونتا سدا لاش لقيت آديات بانو قحنا هاي مر لبعض يمر صدحات بوانو قحنا هاي وانو قحال بحنا وانو كره اللي قلنا بريت ولنا ولا لنم بقدم بين تونتا دور شكست ولا لنم قدم بيسا مدحوينها يقرن كنسي وحنو ذا الدفاع عنا وذا شرقة هدي الله إن شاء الله تعالى هذا الكيغم ما تروح دارنا إن كحال بحنو كرالي قلينو خلخلك رياضة حنفط له أن أقل من أمد اللي يقولون دحشلو من أنتو عمامات قاتو سلطان بان هيدا هذا قلبي جيسي علوشي سبب مالين والبقى بياله كوشرتها أمد ميل جين معي إن لقى كرو أو قبيلة لقى كرو أو قبيلك لقى كرو أو وذا شركة يقرن لماذا لقى شقيه أي ضد لماذا كوشرتها قفك يا هدي قبيل كينو علوشة هذا يعقل جاك ما كوشرو يقول جينا تشوك مالين والبقى الصوت دافين الكاغا نك كوشرتو هو بدنو خطبه هذلي باشري والله مذها ده واسكو مدن واسكو نوعون كا كان يكواسبا واسكو ودا نوعونه اقلدينا جوجو ومد كور دقاقو idin waxba idin ma dirane aqaladiina la idin dirtay annaga kan kaayagan magacayaga ku hadlaya naftiisana mas'uulka in iska daa wax qalo oo mas'uul laga yahay oo cid ka mas'uul tahay iska daa wax mas'uul ka noqday naftiisana mas'uul ka ahay mas'uuliyadda naftiisana qaadi karaynin kuwa kalena waa la mido ku burca ka hadlo maxay suldaan cuna la yiraahdo waxa yiraahdo wuxuu cunaysna waa la midun kaasina ku naftiisa ka mas'uul ma habaan u maleeyaa sida kan weeyaan وأمد كدا يا حنفت ضد ولا لا أنو نهاي وحبنا ومد حيان وحبا يسكمها إنه أحسابتي ورد ماذين وحلا وحنا قد حيان ولا اللي ما هي إنه ما شفتوا دولة دمدا أنا أصي منها الدقيق إلهي بأن أصي منها ضل كان أصي منها وحول بوان أصي منها وحنا كوكل أبترسين سكينه يا وحنا كوكل أبترسين درنا إنه ما شفتوا وحنا لا يابي إن أنت الريه بالنابتال لو يتنابتال لو يتنابتال ورمد نابتال الله ما هي عيبتك كدا يا ومضة mid naabti looma ummaddu ummad sima weey mid baa garaca oo inaan dhash mid gaarayna gaar dhash mid waliba waa ummad reer Soomaaliland walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin hadalkaana waxaan jecelahay wadwadkiisa inaan iska deyno findhicilku maxaraan baa leeyay ma soo hadalqaadkiisa ba la isku qabto ayaa arintaas oo hadalqaadkeeda iyo ninka ku hadlay waxaaba soo hadalqaadkiisa ayaa walaalayaal xune yaanay inaga noqonin uun waa la hadlaayo waa la jawaabayo waxba la yiraahdayo nacam hadal baa la tixraacayo hadalkaasi ku qof ka yimid weey waa ku qof mas'uul aan ahayn ka yimid weey waa ku ka yimid qof aan ummadan iyo qarankan iyo wada jirka midna aan danaynaynin waa kuwan xukuumadda maanta jirta u tulan ka yimid weey intaaba annaga sheegayno cadeynayna sida la shirado walaalayaal inaga noqonin waxaynu ka dhigana salaan iyo ujeedo inagoo meel kale u soconna iyo waxaynu wax ku dimino yaani walaalayaal inaga noqonine aan wada jirkeena ka wada shaqeyno waxaan wada leenahay aan wada qabsanno wanaageena aan ka shaqeyno walaalnimadeena aan ka shaqeyno hore aan u soconaynaa dib u noqonin baa leh